kulankan oo ujeedkiisu yahay soo dhaweynta isku duwaha wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed kaas oo dhawaan la soo magacaabay ayaa maanta waxaa degmada Afgooye ku yeeshay maamulka sare ee gobolka kan degmada Afgooye iyo shaqaalaha wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed waxaana sidoo kale madasha goobjoog ahaa saraakiisha sare ee booliiska gobolka gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa isku duwaha cusub ee wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed ku booriyay in wax badan uu ka bedelo howlaha wasaaradda ee gobolka aad la shoortid aad qalbi dhaqdid qalbi dhaq badan ay u baahan yihiin ayaga dhexdooda la soo isticmaalay ayaga dhexdooda la kala isticmaalay intaan aniga ka warhayo oo ogahay waxaad u baahantiin marka in aad noqotaan hal qoys oo wasaaradda maaliyadda ka tirsan mid kamid ah haduu dhaawac yar gaaro inta kale saameeyna musaaragta idinka shaqaale mudaharada ay waligiin maqasheen idinka hal nin oo wax laga haleeyay leeyahay inta kalena garuunkooda ay haystaan war intay u socotiin maxay ratiin may anaga waxa mudaharadayna shaqaaliya saan leeyahay waa hal nin sababtu maxay tahay hal qoys ay soo arkaan idinku waxa la rabaa marka inaad isku aragtiin hadii awal hore idinku shaqaaleysiiyay ama idinka dhaadhiyay reer hebel ayaad adiga halka u joogtaa ilaahay maqlay reer hebel adoo inta lagu tuuro nin kale la keenay oo reer hebel hataa ahayn adigana ma diidi kartid maxay waxaan system oo dawladdu ninka ay ka dhaadhacsan tahay reer hebelo ayaad halkan u joogtaa hadii lagu bedelo hataa reer hebel la soo lama keenay ninka ay ka dhaadhacsan tahay kaas asaga naftiisa horumar ma gaarsin karo dawladdan dhan uma adaa laga rabaa marka inaad aqoonsatid koonfur galbeed cidna inaysan ka lahayn shaqadaad haysan inaad adiga aad leedahay shaqada haysan inaad adiga leedahay system kan uu yahay system kaagi haduu wanaagsanaadana adna waa wanaagsanaanaysa haduu xumaadana adigana waad xumaanaysa intaas hadaadan isu fahmin waqtigiina waxa uu ku dhamaanaya hebelo muxuu sheegay heblaay maxay tiri waa wixii anaga arki jirnay oo meelahan Soomaalida dhaqankeeda aniga aadan u ninkaan oo hadda yimid waxaan aaminsanahay halka markaan hadda ka dhaqaaq waxa way 5 milyan oo qortay in la soo dhigi doono ogaani oo la soo bilaabi doonaan ka saani telefoon la soo diri doona si fiican oo ogaa waxa dhan meel iska dhig wuxuu ku qaldan yahay idinku idin yahay hogaamiye u sheeg adigana wixii nimankan ka qaldan aad arag anaga iyo maamulka kale iyo wasaaradda intaan lagu boodin ayaga u sheeg wixii ka qaldan inaad saxdan isku day dawladnimada leedin sheegan intaas laakiin nin walba aadtiis ninka kale haduu raadiyo maalin kan aad wacdo meesha waxa ka soo baxay qoys jiniya ka soo baxay oo u baahan in laga dhaxbaxaba hay'ad nimanka dad ay wareerinayna leey kan soo dira kan telefoon nin mas'uulkiis aynay hada aragtiin nin khayr leh nin mas'uulkiis wax ka sheegay daal khayr ma leh nin baraka badan ma ninka la shaqeeyo saaxiibkeen hore aan u duceynaa asagana waqti fiican oo meeshan ka soo shaqeeyay oo aad u adag nin walbana dawladnimada waa asaas isbedelka waa sidaas isbedelka dawladnimada asaas dawladnimada marna way maataa asaas isu bedesho waxaan marka isku duwii hore shaqo fiican soo qabtay muddaan la soo shaqeynay aan garab soo siinay dawladnimada waa isbedel isku duwaa cusub hadda yimid waxaan rabnaa in garab la siiyo la shaqeeyo la caawiyo horumarkiisa ayaa horumarkiina noqon doona maxay yeelay asaa horjoogi idin ah wuxuu asaga noqdo ayaad idinkana noqon doontaa haduu noqdo nin sharaf leh oo shaqadii la keenay kor u qaaday idinkana kor aadaysa haduu shaqadii kor u qaadi waayo hoos aad idinku dhigtaan isku duwaha cusub ee wasaaradda maaliyadda gobolka Mustafa ayaa ballan qaaday in uu dardar gelin doono shaqada wasaaradda raba in la shaqeeyo inaan war badan ilaahna ma rabo warkiga inaan dib u dhigtaan raba shaqaalaha aan mid u arko laakiin waxaan shaqaalaha u sheegayaa in maaragtay wasiirku markuu halkan yimid wuxuu inoo sheegay in tayada shaqaalaha kor loo qaadayo kor qaadina ana ku imid aniguna waxa weeye shaqaalaha waxaan kula shaqeey doonaa nin kasta soo ila shaqeey shaqaalaha waxa wala shaqeey doonaa nin kasta soo ila shaqeey kii fiicana waan haysanayaa kii aan maaragtay shaqadiisa gudanayna wala fasaxaya shaqaal way wada maqlayaan gudoomiyaha way maqla meesha waxaa rabaa isbedel muuqda in laga qabto la arko institution dawladeed in lagu shaqeynayo lama baahna in maaragtay isbaare ay noqoto meeshii waa ceeb maamul jira ayaa tiin
aduu shaqaydaan maamulku waxa la rabaa marka inaad ka soo dhalaashaan si saxana loogu shaqeeyo idinkana xuquuqdiina laydi guddoonsiyo ayadoo abaalmarin waliba waxaan ballan qaaday guddoomiyahana way maqlayaa ninka shaqadiisa si fiican u gutanay inaan ballanqaad rasmi siinayo oo shaqadiisa intuu qaaday jiray ka badan aan siinayo waa hadduu si fiican u shaqeeyo idinkuna waxaan rabaa inaad saas ugula shaqaydaan siyaasadda dowladda koonfur galbeed kulligan waxaa weeye hadday wanaagsanaatana aniga nagu wada wanaagsanta hadday xumaatana aniga naga wada xumaata marka waxaa idinka rabaa idinkuna inaad maaragtay bismillaahi tidhaahdaan wixii lan sii imaansataan iska daydaan xatooyada anigana maaragtay aan haddaan wax hadaa aad tidhaahdaan waa tuuga hala qabto wax adigu keentaa anigana ninka maaragtay cabdiweli cali online barnaamijka bandhiga TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose.